الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ليال وإن شاء الله تعالى أن وحكورن دونا maalmahan tobanka ah ee fadliga badan ee ugu horeeya bishan Dhulhijja la yiraahdo oo ah bisha 12aad ee bilaha hijriga kamida sanadkuna uu ku gabagaboodo walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala deeqihiisu way badan yihiin nabiga alayhi salaatu wassalaam xadiis saxiixa أو كوري أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نبي وحو كشيغ عليه الصلاة والسلام افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده نبي صلى الله عليه وسلم وحو افعلوا الخير دهركم خير كالسمعية وقتقين أردن sanadkii oo dhan ama waqtiga oo dhan khayrka sameeya wataaradu linafahaati rahmatillah ubanbaha oo raadiya deeqaha naxariista ilaahay fa inna lillahi nafahaatin min rahmatihi ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa u sugnaaday deeqo naxariistiisa ah oo bixiyo oo yusiibu biha man yashaa min cibaadi ilaahay tabaaraka wa tacaala cidii uu doono adoobihiisa kamida oo markaa uu ku asiibo oo siiyo yani ilaahay tabaaraka wa tacaala deeqo ayuu bixiyaa marka deeqahaas ilaahay tabaaraka wa tacaala uu bixinayo sanadkii ama waqtigii dhexdiisa u banbaxo raadiye ayuu xadiisku tilmaamaya sidoo kale nabiga alayhi salaatu wasalaam حديث كلا وحكو تلمامي إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها إلهي تبارك وتعالى مالبها سنة كأردن وحا وصق ناضي داقة أي وصق ناضي فتعرضوا لها أبنبحة الرادية فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا وحلقيا ومتكين in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyo deeq ka mid ah deeqihiisa oo markaa aanu waxa weeye noloshiisa intaa dabadeed aanu guul daraysanin yani liibaan ula kulmo ayaa dhici karta waxa walaalayaal markaa ka mid ah deeqa ilaahay waxa ka mid ah 10kan maalmood ee 10 Dhulhijja la yiraahdo ee bishan Dhulhijja ugu soo horeeya ee fadligeedu kitaabka quraanka iyo sunnada uu ku soo arooray quraanka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yiri suuratul fajr bilowgeeda wal fajr wa layaalin 10 ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waxaan ku dhaaranayaa fajriga waa bariga iyo walayaalin 10 iyo habeeno 10 ah 10ka habeen marka culimadu waxay u badan yihiin inay tahay 10ka ugu soo horeeyay bisha Dhulhijja sida uu ku fasiray ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubayr iyo Mujahid iyo kuwa kalaba 10kan maalmood waxa kamid ah maalinka Carafa oo isaguna fadli gaara oo ku soo arooray maalinka Carafa waa maalinka Ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomihiisa uu dambi dhaafo adoomaha ugu badan oo naarta ka xoreeyay si awgeed baa xadiistu ay tilmaantay in maalinka markaa shaydaanku aad uga xumaado oo maalin uu shaydaanku ka liito oo ka fool xun yahay ma soo marto shaydaanka way wuxuu arkayaa malaa'igtii oo soo degaysa naxariista Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo adoomihiisa Ilaahay tabaaraka wa tacaala ku manaysanayo afcaashii xajka iyo umrada la sameeynayo ayuu arkay maalmaha 10ka ah fadligoodu quraanka sida uu ugu sugan yahay xadiidkan waa ku sugan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhaartaa wax weyn marka walayaalin 10 dhaarta ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa laga qaadanayaa maalmahaas inay yihiin maalmo aad u qiimo badan sidoo kale
حديث توحى قصوى رورتي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالصحيح يا عبد الله بن عباس وريي النبي صلى الله عليه وسلم وحر ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في 10 ذي الحجة مع الممجران وكفد لبدن هاي عمل كلا السمية مع ذي الحجة طبعا كمال ما هاي المجران يعني عمل السمية وحقوق بدن عمل كلا قبتم مع ذي الحجة طبعا markaas saxaabadii ayaa weydiisay nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aalo waxay ku yiraahdeen walal jihaadu fi sabiilillah rasuulkii allah jihaadka lagu jihaado jidka ilaahayna ha ahaatee miyaanu jirin amal ka fadli badan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri walal jihaadu fi sabiilillah hatta jihaadka ilaahay dartii loo jihaada kama fadli badna maalmahaas amalka la qabto ee aan jihaadka ahayn إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء موياني قف نفتي سي مالكي سي بالله صوبحي أو حوا عن كاسون نقولين رواية كالوحي تلماميس إلا من عقر جواده وأهريق دمه قفل بقنقوي فرسكيسي أو للدلي ساقنا ديقيسي للدادين موياني qofka marka naftiisa ku baxday ee maalkiisa ku baxay ayuunba waxa weeye ka fadli badan amalka maalmaha la qabto laakiin jihaadna noqotee acmaasha wixii ka soo haray ee la qabanayo bilaha kale maalmahan amalka la qabto ma gaaraya amal kasta wanaagsan maalmaha waa la qabanaya هذه صلاة صدقة صومكي ذكري حسكي إلهي تبارك وتعالى تكبيرتي قرآنك إلى آخره والدك الله صلى فلا قرابة الله حريريو تدك وناك لقرآن نقبه شار وناك يوحيابها الله بيتك مركب مالمها إن لقى فعيدي استأيام مضن أو حوي آديات مركب مهمة وحمركا سؤال ورتي سعيد بن جبير رحمه الله التابعي قال لي هذا مركا طبنكاس ay soo galaan inuu dadaali jiray dadaal mid la mid aan la awoodi yani la awoodi karin ayuu markaa dadaali jiray sababta hadaba maalmahan ay u noqdeen maalmaha ugu fadliga badan waxa ku tilmaameen culimadu waayo cibaadooyinkii kala duwanaa ayaa ku kulmay maalmahan وصلاتي iyo soonkii iyo sadaqadii iyo xajkii iyo acmaal kalaba maalmahan tobanka acmaasha la qabanayo waxa kow ka xajka iyo umrada in la soo guto xajka iyo umradu waxay ka mid yihiin acmaasha ugu muhiimsan ee la qabanayo tobankan maalmood xajku waa rukni ka mid ah arkaanta islaamka وانا عمل آد وين والدنبي قال لك ضعف النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح وحو كيري من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قفك إلهي تبارك وتعالى درتي أسو حجة عن هذا الحن يفسق طون عن كل واقن فسقنا عن سمين هذا الحن عن كل واقن qofkaasi wuxuu ka soo noqonayaa xajkii maalinkii hooyadii ay umushay isagoo la mid ah xagga dambi la'aanta sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam umrada soo ka hadlaaya fadligeeda wuxuu yiri al-umratu ila al-umrati kafaratu lima baynahuma umro ila umro kale laga gaadhayo waxay kafaara gudu tahay wixii u dhaxeeya labada umro dembiyada dhacay ayaa lagu dhaafayaa wixii aan kabaa'irti ahayn wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajka lagu samafalay awaal marin malaha aan janna ahayn ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri marka qof kasta oo awood u leh inuu soo xajo waa inuu marka xajka u aado acmaasha la qabanayo tobankan waxa kamid ah soonka si guud tobankan maalmood maalinka u dambeeyay ee ciida
mooyaane sagaalka kale in la soomo welibana maalinka sagaalaad oo yowmu carafa la yidhaahdo ayaa ugu sii muhiimsan nebiguna calayhi salaatu wasalaam camalka soonka la yidhaahdo fadaa'il badan buu sheego xadiidka xadiisulqudsiga ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku hadlay nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ka wariyey rabbigii ilaahay inuu yidhi kullu camal ibni aadama lahu ibni aadan kasta camalkiisa isaga ayaa iska leh alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 dicf halka wanaagee la qabto 10 jeer baa lasii labanlaabayaa ilaa 700 oo labanlaab laga gaadhay ila sawma fa innahu lii wa ana ajzi bih soonka mooyaane waayo soonka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi anaa iska leh anaana qofkii ka abaalmarinaya markaa soonka abaalmarintiisii lama sheegin oo lama xadidin taasina waxay tilmaamaysaa weynida uu soonku weyn yahay iyo qiimaha soonka uu leeyahay markaa soonkan la soomayo maalmahan 10ka ah maalinka ciidda marka laga tago waa mustaxab waa sunne welibana waa sunne aada u xoog badan oo sunnatun mu'akkada ama mustaxabun istixbaaban shadiidan gaar ahaan maalinka carafa oo maalinka sagaalaad ah isaga markaa maalinkaas si gaara ayuu u sii awood badan yahay soonkiisu oo aada iyo aad ayuu u fadli badan yahay markaa qofka aan xajka joogin waa inuu maalinkaa ku dadaalo soonkiisa waana maalinka sagaalaad ee ka mida bishan dilxija nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis ku tilmaamay isagoo sheegaya fadliga uu leeyahay maalinkaasi siyaamu yowmi carafata axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablahu waasanata alatii bacdah maalinka carafa soonkeeda ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waxaan kaga rajaynayaa oo aan kaga doonayaa inuu markaa uu tirtiro oo kafaara uu noqdo dembiyadii sanadkii tegay iyo dembiyada sanadka iman doonaba acmaasha la qabanayo waxaa ka mid ah tasbiixda subxaana allah iyo tahliisha laa ilaaha ila allah iyo takbiirta allahu akbar in lagu celceliyo oo aada iyo aad loogu dadaalo arrinta noocaas qofkuna codka uu kor ugu qaado gabadhu haddii markaa meesha rag ay ka dhow yihiin hoos bay u dhigaysaa laakiin raggu iyagu kor bay u qaadayaan si markaa waxa weeye takbiirtu ay dadka u gaadho dadkuna ay ugu daydaan qofku hadduu masjid ku jiro hadduu suuqa maraayo hadduu guriga joogo intaba waa inuu takbiirto ilaahay baa tabaaraka wa tacaalaa ku tilmaamay qur-aanka liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahiimati lancaam ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi liyashhaduu manaafica lahum si ay uga qeyb galaan waxyaabo iyaga wax u taraaya wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaat oo ilaahay tabaaraka wa tacaala magaciisa ay u xusaan maalmo la garanaayo maalmaha la garanaayana waxaa looga jeedaa maalmahan 10ka ah oo cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu tilmaamay radia allahu tacaala canhu alayaamu almacluumaat ayaamu lcashr maalmaha la garanayaa waa maalmaha 10ka ah ee dilxija ka mida sidaasoo kale waxaa tilmaamay abu muusa alashcari iyo mujaahid iyo qataada iyo kuwo kale dikrigaas la qabanayo ama lala imanayo xuska ilaahay maalmahan 10ka lala imanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam amar gaar ayuu ku bixiyey xadiis wuxuu ku sheegay markaa sugan maa min ayaamin alcamalu fiihinna afdalu min ayaami alcashr ma jiro maalmo camalkuu ka fadli badan yahay maalmaha 10ka faakiruu fiihinna atasbiixa waltahliila waltakbiir farabadiya tasbiixda iyo tahliisha iyo takbiirta yacni ku celceliya subxaana allah iyo alxamdu lilaah iyo allahu akbar
كعل علي أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلي وحكى عن صحدي عبد الله بن عمر بن الخطاب يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما لبدا السحابي إن السوق أو بحجرين مع المهن طبنكا يجوا تكبيرنا هي dadkuna arinta noocaas ay kaga dayan jireen qaabka loo takbiiranayaa waxa ay tahay sida marka ku soo aroortay xadiiska in la yiraahdo Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd waxa kale oo iyaduna soo aroortay in saddex laga dhigo oo la yiraahdo Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd waxa kale oo soo aroortay Allahu akbar taqudheeda saddex in laga dhigo oo la yiraahdo tan dambe iyo tooro labadaba in saddex laga dhigo Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd qaabkii marka loogu dhawaaqaba waa saxiix oo waxa weeye marka wax dhibaato ama laha daba takbiirtaasi laba nooc oo timaadayo mar waa mutlaq marna waa muqayyad mutlaq waxa laga wadaa takbiir aan waqti ku xidhnayn takbiirta aan waqtiga ku xidhnayn waxay ka bilaabanaysaa marka sidaa ay u soo gasho 10 maalmood ay soo galaan bilowga in la bilaabo takbiirta sii deysan waqti kuma xidhna xilli kasto qofku way u furan tahay inuu la yimaado takbiirtaas ama suuqa joogo ama guriga joogo ama dariiqaha maraayo ama ku jira masjid oo la imanaya laakiin waqti gaar ah kuma xidhna oo waxa la yiraahdaa takbiirta mutlaqa waxay dhamaanaysaa maalinka ciida marka khudbadeeda uu dhameeyo imaamku ay dhamaanaysa marka 10 cisho way joogtaa takbiirta muqayyadka ee iyadu dabran waa takbiirta waqti ku xidhan gaara waxa la imanayaa aqib as-salawaat al-mafruuda salaadaha faralka gadaashooda shanta salaadood dibadooda la imanayaa waxay bilaabanaysaa maalinka Arafa salaadeeda subax way bilaabanaysaa kadib waxay soconaysaa ilaa maalinka u dambeeya ayaamu tashriiqa maalmaha hilbawaradka maalinka u dambeeya salaadiisa casar kadib ahlul cilmiga qaarkood waxay tilmaamayaan inay bilaabanayso marka hore maalinka ciid habeenka ciidda ay soo galayso kadibna ay dhamaanayso saddexda cisho ciidda ku xigan ay soconayso oo ay ku dhamaanayso saddexda cisho maalinka u dambeeya ayaamu tashriiqa maalinka saddexaad maghribkiisa inay dhamaanayso waan la akhriyahayn iyada marka maalinka ciidda saddexda ku xiga loo yaqaan ayaamu tashriiq maalinka ciid waa maalinka tobnaad marka ayaamu tashriiq wuxuu noqonayaa 11aad iyo 12aad iyo 13aad saddexda cishana waxay kamid yihiin maalmaha ciidda ayay kamid yihiin la xukun yihiin marka 4 maalmoodba waxa la wadayaa takbiirta salaadaha dabadooda la qaadayo ee loo yaqaano at-takbiir al-muqayyad acmaasha 10 cisho la qabanayo waxa kamida salaada maalinka ciidda la tukanayo oo iyadu ahkaamteeda leh salaad marka u baahan in si gaar ah looga hadlo iyada iyo ahkaamteeda iyo wax ku saabsan weeye salaada marka waa salaad culimadu ay u badan yihiin tahay sunna walibana muakkada culimada qaarkoodna ay waajib gaarsiiyaan acmaasha la qabanayo waxa kamida maalinkaas 10 maalmood waxa kamida udhiyadii oo maalinka ciidda la gowracayo maalmaha ka dambeeyay ee ayaamu tashriiqana way banaan tahay inuu qofku u dib dhigo waana acmaasha waaweyn bay kamid tahay gowracaasi ilaahay tabaaraka wa tacaala waa loogu dhawaanaya waa amal fadli badan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi fasalli rabbika wanhar rabbiga u tuko oo udhiyadana dhuundhow gowrac
markaa wanxar waxaa markaa looga jeedaa udxiyadii gowrac. nebigu sala allahu calay wasalam markuu salaaddii ciidi tukado ee uu soo noqdo ayuu gowrici jiray udxiyadiisa, sida uu tilmaamayo Anas radia allahu tacaala canhu. wuxuu yidhi daxa الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam bikabshayni amlaxayni fara'aytuhu waadican yadahu calىa sifaaxihimaa yusamii wayukabiru fadabaxahumaa biyadih. nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ku uluxaystay buu yihi laba wan oo welibana calama leh. riwaayaadka qaar waxay sheegayaan labadaa wan inay geeso lahaayeen. markaasaa waxa weeye gacantiisa uu ka saaray qoorta isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala magaciisa ku dhawaaqayo bismi illaahi leh oo takbiiranaya, kadibna uu gowraco. gacantiisu ku gowracay buuli bismi illaahi allahu akbar, bismi illaahi wallaahu akbar intuu yidhi ayuu gowracay. marka udxiyadu waa camal la isku waafaqsan yahay inuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sharciyeeyey, bal wuxuu ka mid yahay shacaa'irta islaamka, astaamaha waaweyn ee diinta islaamku ay la gaarka tahay buu ka mid yahay, ee ay tahay qof kastaa inuu markaa waxa weeye ilaaliyo. waxaa haddaba habboon qofka doonayay inuu ulxaysto 10kan maalmood markay soo galaan in ciddiyihiisa iyo timihiisa midnaba aanu taabanin. ciddiyahana guri maayo, timahana xiiri maayo, waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka markaa wuxuu gowraco haysta, neef uu gowraco qofka haya, qofka dee waxa weeye lacagteedii hayaana waa la mid ee soo iibsanaya. marka bisha dilxija ay bilato yaanu timihiisa iyo ciddiyihiisa aanu taabanin ilaa uu gowracayo udxiyadii, xadiidka saxiixa ee ku yaalla fii saxiixi muslim. marka arrinta noocaasa in lagu dadaalo weeye, oo waxa weeye qofkii doonayay inuu udxaysto in markaa waxa weeye uu iska ilaaliyo inuu taabto timihiisii iyo ciddiyihiisii ayaa mudan. marka acmaasha lagu dadaalayo way fara badan yihiin. qur-aankii oo la akhriyo, dikrigii ilaahay, sadaqadii, wanaaggii oo la faro, xumaantii oo dadka laga reebo, dadkoo cilmiga loo dhigo, qaraabadoo la xidhiidhiyo, waalidkoo loo samafalo, qofkii xanuunsanayo lasoo booqdo, iyo acmaasha kala duwan ee wanaagga ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu dhowaanayo ayaa qofku la imanayaa. markaa dardaaranku waxa weeye maalmahan in la dadaalo oo acmaasha fiican aada loogu dadaalo, sida camalka qofka loogu labanlaabayo khayrkiisa ayaa dembiyadana qudheedu ay ka weyn tahay ama ka dembi badan tahay wakhtiyadii kale. ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrkaana waafajiyo. wallaahu aclam.